waxaa shir kuliyaan wasaaradda ururada bulshada madaxdooda anakoo maanta aan ka codsanay inay noo yimaadaan aan ka wada hadalno wax noo dhexeeyo arrimaha bulshada noo dhexeeya ka wada hadalno shaqaalaha badqabkiisa iyo xuquuqdooda ha noqdaan kuwa dowladda iyo kuwa private-ka wasaaradda waxay waday saa ula socotaan waxaan la jirnay intii maaragtay wada shaqeyn ay leeyihiin iyada wada shaqeyn ay leeyihiin waxaan la jirnay rugta ganacsiga la jirnay guddiga shaqaalaha la jirnay ururada oo shaqaalaha qaarkood la jirnay ay waa ka mid yihiin marka waxaan aad iyo aad aan u danaynayna maaragtay in wasaaradda waxqabadkeeda uu gaaro meel kasta iyadoo kaashinayso ururada ku shaqo leh ururada bulshada waxaa waa midka ugu muhiimsan waaye bulshada midka ugu muhiimsan waa garan kartaa magacaan bu wadaagnaa ururada bulsha iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waa marka waxa keenay maaragtay inuu isku imaado arrintaas waaye talooyin badan ay soo jeediyeen anaka waxaan hawsha holahan gacanta ku hayna ayaan la socodsiinay oo qaar ka mida talooyinkay soo jeedeen in anaka jawaab aan kula jirno haddana waxaan ku heshiinay talo aan soo jeedin aan samayn doono center maaragtay oo wax u dhexayso xuquuqda shaqaalaha iyo aan kulli ku saabsan oo kull gaarsiinay wasaaradaha kale aan gaarsiinay si wasaaradda ay wala socoto xuquuqdaas oo idin aan samaynay marka kulankan midka koowaad ma noqonahay waxyaan isla meel dhignay dabagalkeeda ayaa noo haray anaga wax bay noo direen waxbaan u dirsan talooyin aan tursanay marka waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiman mar labaad inaan kulan waxaan kaloo ku aan istusnay in laga maarmaan tahay tallaabo kastoo wasaaradda ay qaadayso in ay la socdaan xagga xuquuqda shaqaalaha dowladda u shaqeeyay iyo xuquuqda shaqaalaha private-ka ah waxay welwel ku muujiyeen oo anakan jaa waaxdaas aan qabno badqabka shaqaalaha ay welwel ka muujiyeen marka anaka waxaa noo jira badqabka shaqaalaha oo layidhahdo ku howlan taasna maaragtay waa dadalgelinaynaa maarata wixii tala ku saabsan badqabka iyo waxay ay gacan ugu siin karaan waa usoo jeedi doonaa ururada bulshada gacan weyn ay ka geysan karaan meel kasta xiriirka ay leeyihiin gudaha waddanka gudaha iyo xiriirka ay leeyihin arrimaha dibadda gacan weyn ay ka geysan karaan waana ka faa'iidaysanaya resource ay ahayn intaas sharka maanta marka kulanka koow ahaa kulamo kala jiri doona haddii ilaahadmo aad idinka marqaadi qaban doonaa soo dhawaada